magacaygu waa Maxamed Macalin Cumar Cali Xasan Xuseen waxaan u dhaawacanahay dawladda Soomaaliya xalay abaarihii 6 saac iyo 5 daqiiqo anoo gurigayga jiifa gurigana uu yahay jeengad ayaa xabad wiiftaan noogu timiday anugoo yaaban oo argagaxsan oo maqaxdiin mase isdhahaynay haddana xabadaa noogu soo gashay dawladda Soomaaliya u dhaawacanahay waxaan joogaa Kaysanay waxaan u baahanahay dawladda Soomaaliya inay cadaalad iyo iifash tani aan joognaa qolka tooska aan joognaa wiilkaygina kulay waa uu la arki doonaa isagoo waa wiil shanjira oo hadda mataqaan naaska bidixda oo wadnaha korkoora xabad wiiftaa u wataal dawladda waxaan ugu baaqayaa inaynan xabadan nagu ridin kulay koodi luuliya waa xorriyadda oo waa soo dhaweynaa laakiin waxaan ugu baaqayaa inaysan wax xabad iyo nagu ridin hadday ridaysana meeshii ku habboon ay ku riddo ugu dambeyn inay gacan naga siiso dhaawacay oo xalliga soo gaar unkoon isbixi karin ayaa dhaawacaasna soo gaaray